niyo waxaan moodaa saaxiibkii gacal horta inuu wuxuu dhan ka leexleexanayo wixii dusha dadahayo oo san xaqiiq taabanaynin horta mid baan kuu sheegay saaxiib war shanta maamul goboleed nimanka halkaa isugu tagay baawar bay leeyihiin maamulo nimankaanu jiray aan jirin doorasho ku yimid bay horta haystaa shanta madaxweynada horta maamul ma hayaan ha u qaadanin maamul hadii ha u qaadanin in inta cama yimaado halkaa yimaado dan uu ka fiirso horta ha u qaadanin carabi intuu shirka ka soo qayb galay inuu yidhahdo galmudug baa matalaya ha ku seexan qolada muxuu ahaa hirshabelle intay yimaadaan oo yidhahdaan shirki baan ka qayb galay horta ha ku seexan niyow gidaar carrada madaxa ku haysan adiga saaxiibda horta ha ka soo taa ma dhacayso waba joogaan shalay bay yimideen ma dhacayso maxay tahay iska dhaaf waa yani waxaa meesha ka muuqata shalay baarlamaanka joogo ka hadlay waa dhageysan ma dhageysan qaybintii wadeen nin iska hadlay weeye marka sharaf darro waxay madax u tahay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed dhammaado haysatay gobolka oo baarlamaanka hadii dhaxgal ma waxaan rabaa inaad ka joogto tagtaa wax joogto ciida tayda ayo waay waxa meesha ka muuqata madaxweynuhu inuu maanta isku cadeeyay wixii la sheegayay iyo ra'iisul wasaaruhu inay si toos u kala jabinayaan oo maamuladii dhisnaa ay kala daadinayaan oo qabiil u kala daadinayaan arrintuna qabiil isu bedeli doonta hamoodiisaan mooday waxaan Soomaalidu waxay tiraahdaa jarantaku maamahan iga daayo horta mid waa midaasan ku leeyahay oo ha ku cararina lacag baa la doontay iyo lacag baa laga xanaaqay iyo war meesha aynu taargetka saarno nimankaana ay ka cawdaan lacag kama caban nimankaana wixii lacag ku dabaqaya lacagta halkaa naga dhig lacagta cidno xisaab cirma diidayso waxa la isku haystaa waa amniga dalka waxa la isku haystaa waxyaabaha ka hadlay waxay ka hadleen garsoor caadul ma jiraan dalkii oo ninkii rabeen bay geysteen waxay ka hadleen oo kamid ah hay'adihii amniga oo wax sixi lahaa nin ay soo kaxayseen bay geysteen bay ka hadleen wixii hal hagaajiyo wanaag lagu hagaajiyo garsoorkii wanaag lagu hagaajiyo hay'adaha amniga cidda loo hagaajiyo lagu hagaajiyo ka hadlaya waa qodobka mid labaad su'aasha aan leedahay muxuu ahaa maamul goboleedu kursi u cararaya warniman Soomaali kursi maanta rabeen ma jiro hadda maanta kursi u doodaysaa kursi in lagu sii u baahan tahay waxa saaxiibada ugu difaacaysaa maamul goboleedyadu horeba u shiri jireen intaasoo jeer bay shireen 4 jeer xamar ku yimaadeen war wixii haddaan dhalada biyaha ku heshiino aad ila qaadan weydin soo in ay radamaada gacalo khiyaana samayso dhalada ugu heshiin weydin waraadar meelan talo jirin iyo lacag iyo yeenan ka hadlin aynu dib u soo noqon nimankan waxay ka hadleen badbaadaan dalkii wixii lagu hagi lahaa oo cadawga looga saar lahaa nimankan waa ka dhabar adeegeen waa ka madax adeegeen hal su'aasha ciyaartay su'aashii ahayd wariyo ka shaqadna aad iska jawaabto ahayd geeska Afrika sabab laga rabaa warniyahow intaynu energy gelinayno oo dhaqaale gelinayno oo diyaarad fuulayno oo dalal iyagu siyaasadoodii iskhilaafay isku haysta aan diyaarad u fuulayno oo aan Eritrea iyo Djibouti iyo maxaarad dhex taaganahay oo aan diyaarad u fuulayno war ilaahay baan ku dhaarshay adigu amnigaaga ma sugati markaad adigu amnigaaga sugati markaad dadkaaga isu keentid marka ummadaadi ka shaqaysid markii madaxtooyada maanta 200 tilaabo ka dagaysid meesha aad waxaysid oo iska daa meel kale caasimadii Soomaaliya kaliya amnigeeda hadii la sugi lahaa horta wax walba hal la qabto meel aan ma waxa lagu doortay Eritrea inaad heshiisiisid ma waxa lagu doortay inaad China waxaysi taas waqtiga Allah na gaarsiiyo laakiin adaa qaawan adaa cagacad markaad marada isku rogtid oo dad noqotid baad wax la qabsan kartaa laakiin dabeel socota adoo ciidamo shay ku ilaalinaya oo madaxtooyada maalinta lagu soo weerarayo inaad tiraahdo meel kale ordahaya waa siyaasad xumada iyo hoggaan xumada dalka ku habsatay taas mid kale